dhaqan iyo hidde marka lagu leeyahay ereyga hidde waa oday ka soo gaar waa caadadatan oo generation to generation la isku tabinayay oo odayba wiilba wiilkiisa uu ka sii dhaxlayay laakiin mar walba marka la daba raaco oo la daba guro oo la raadiyo wax nas u hayay ma jira haddana bulshadii ka guurmaysa waxay ku leedahay caado la gooyo cara alla ilaa waxa lagu leeyahay anagu reer hebelka raxmaan raxiim kulan wacan daawadayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni dhaqan iyo dhigaal waxa inoo marti ah oo dhinacayga jooga maxamed cabdicasiis cabdulqaadir oo ku magac dheer darwiish soo dhawow oo dhawaad cabdinaasir mawduuca maanta waxaan rajaynayaa in dood badan ay ka dhex dhalan doonto intaan dhegeystayaashii daawadayaasha la gaarin dhexdeena waa mahadsan tahay marka la soo dhawo ayaan ku leenahay waxaanu ka hadlaynaa dhaqan sideedaba marka hore waa maxay dhaqan cabdinaasir waa mahadsan tahay shacabka soomaaliyeedna waa salaamaya meel joogaanba iyo dhaqanku horta waa kelimad kulmisanaysa wax aad u fara badan Soomaalidu dhaqan waxa laga yaabaa inay u haysato hees iyo gabadh ama qofku inuu hooyaalay yiraahdo ama uu qina ama hees tiriyo intuu masrax yimaado dhaqanku saama dhaqanku wuxuu la xiriiraa habka bulshada u noosha wuxuu la xiriiraa bulshada waxa weeye ciyaaraheedii dhaqanka oo xiliyada hore ay lahayd wuxuu la xiriiraa dress upkeeda ama bulshada waxa ay xirata mawba afka Soomaaliga lagu yiraahdo bulshada hawl dhaqameedkeedii dhar dhaqameedkeedii ayuu la xiriiraa wuxuu la xiriiraa bulshadaas wixii ay ku noolaanaysay iyo sida ay u noolaanaysay wixii ay aaminsanayd ama caqiidaadka iyo diimaha iyo waxa ay haystaan sida dhaqan marka la soo gaabiyo afka Soomaaliga waa ahaanshaha qofka ya adigu markaad maanta saa u fadhido waxaad ka kooban tahay maw oo waxaad xirnayd waxaad ka kooban tahay waxaad aaminsanayd oo diintaadii ah waxaad ka kooban tahay waxa aad haysatay saa ugu dhaqmaysay dhaqan marka wuxuu kala noqdaa ladnaansho oo maanta markaan ku iraado war Cabdinaasirow seeba tahay bal axwaashka war waa dhaqan hay'adda tireedin waxay la macna tahay barwaaqaysna alxamdulillah rabbil alamin meel walba waa ka dhameystirna dhaqan marka ladnaanshana way noqotaa sidoo kalena waa ahaanshaha qofka sida aan ku sheegay qofku haday tahay caqiidadii haday tahay waxa weeye wuxuu isticmaalay haday tahay wuxuu aaminsanaa oo caqiidada laftirkeedu tan runtaayo aan haysana ma khiyaalu nafsi wax kale la dhahay jiro yaani cilmi khayaal oo dadku hadana caqiidaysiin waan u gudbi doonaa su'aalahaagi ku jirtay marka caqiidada laftirkeedii ba waxay tahay mid runa iyo mid aan run ahayn abka soo gaaro xiliyo hore ay umad aaminsanayeen ayadoo dhaqan kamid intaan ku u gudbin bulshada Soomaaliyeed dhaqan bay leedahay maxaa ka tilmaami kartaa waxyaabaha cajiibka bulshada Soomaaliyeed dhaqanku leedahay niyow caada la yiraahdaa norms waa qayb dhaqanka kamid ah dhaqanku kaliya kama hadlo waxa bulshadu xiratay inay heesta iyo inay gabayda kama hadlo wax caada dhaqameed la yiraahdaa jira alaab dhaqameed markaan ka soo tagno mawgi caada dhaqameedkaasi all about belief man waa waxa qofku aaminsan yahay marka waxa qofku aaminsan yahay baa laba u kala bax wax run ah iyo wax cilmi falak la yiraahdo ama cilmi khayaal yaani wax xiliyo hore la sheegi jiray laakiin aan nas loo ahayn Soomaalidu waxyaalo badan bay aaminsantay oo diinta ka hor inkastoo dad Soomaaliyeed ay ku doodaan Soomaalidu diinta waa la dhalatayba oo yaani lama soo arag Soomaali before Islam ah kutub badan iyo culimo badan ay qabto haddana Soomaalidu wax badan ay aaminsantahay aan diinta nas ku lahayn bay jir laakiin waa maxay waa caada dhaqameed waxay aaminsantahay oo ay ayadu rumaysan tahay hatta deegaamada ku kala duwan oo qabaa'ilka laga yaaba qolo inay saa aaminsantahay saa hadaan sameeyay awoogayaga saa sameyn jiray anaguna saama sameeyana waa gartay marka dhaqan iyo caada dhaqameed ma laba kala yihiin may dhaqanka ayaa balaaran dhaqanka alaab dhaqameed baa soo hoos gasha cayaaro dhaqameed baa soo hoos gala oo heesihii balweyntii hirweyntii waxa weeye dhaantooyinkii oo kala jaad ah caada dhaqameed baa soo hoos gala asaguna oo ah caada dhaqameedka iyo ciyaar dhaqameedka iyo alaab dhaqameedka mid la shaqo isku wada mid walba waa mawduuc gaar caada dhaqameedku waa san ku sheegayo waa aaminaad waatan Soomaalidu tiraada caada la gooyo
cara alla leeyahay caada dhaqameedku waa khiyaal nafsi jira oo waxa weeye laakiin meel laga soo xigtay aan la garanayn waxa kamid cilmi falaka kamid caada dhaqameedka cilmiga xidigiska oo la leeyahay hadii xidigaasi soo baxo saasa dhacaysa hadii shimbir hebel maxay dhahan guumaysto haday timaado balaaya dhacaysa qof baa xirada laga saarayo nas uma hayaan laakiin way aaminsan yihiin way ku dhaqmaan oo habeenkaas waxa weeye waa laga alla baryahay haday baashaas timaado wax nas loo hayo oo diinta sal kulama laakiin wax ay aaminsan yihiin waa caada dhaqameed waa kuwa ay ku leeyahay caada la gooyo cara alla leeyahay booski diinta boos u dhow bay dhigaan 4 bilood dambeys lama guuray dhahan reer miyiga hadii la guuro xoolaha warjeef meeya ama waxaasa ku dhacay hatta ilaahay wuxuu keenaya isaga yaqaan laakiin waxaan meel ka soo xigtaana male waxaana jirtay mid baan ku sheegaya dhaqan iyo hiddo marka lagu leeyahay ereyga hidde waa oday ka soo gaar waa caadadatan oo generation to generation la isku tibinayay oo odayba wiilba wiilkiisa uu ka sii dhaxlayay laakiin mar walba marka la daba raaco oo la daba guro oo la raadiyo wax nas u hayay ma jira haddana bulshada ka guurmaysa waxay ku leedahay caada la gooyo cara alla leeyahay waxa lagu leeyahay anagu reer hebel kama guursan caada la gooyo cara alla leeyahay ma gooyin karno ma jabin karno dastuur waa ka adag Soomaaliya saasiirtan ay qorato oo leeyahay dastuurka federaalka qodob hebel kan Puntland qodob hebel qodob xeerarka reeraha ka weyn kullu waa caada dhaqameed waa wax iyaga u dhaxeeyo cid u dardaarantay iyo kitaab u qoray iyo cid kala balantay midna ma jirto adiga waa hadda ku soo celiyo kuwa caada dhaqameed ba sheegi kartaa waa gartay marka xagee iska qabsanayaan caada la gooyo cara alla leedahay iyo waxaan waa khuraafaad ana ku sheegay xogaa sharaxaad halka naga sii ana ku sheegay horta inagu dad muslimiin ah maahmaahda anigu ma taageeray oo sharciyan ma sharca Allah lana baan ku dhaqmaynaa anagu kitaab iyo sunna iyo meelan u noqonaanu leenahay ma garanaysa laakiin waxa jira ummad walba saynis bay leedahay iyo cilmi ayada u gaar ah diinta islaamkuna cilmiyeeda mitiidana qaybo badan oo kamid marka maybe de waa madawasayni Soomaalida u gaar laakiin caada la gooyo cara oo caadada xun dad shala tuug ahayd oo maanta tuugnimada iska disay ilaahay ma ku caroonaya may waxa aan ku sheego before Islam yimid oo waxa islaamka nas ku lahayn laakiin caadooyinka qaybo badan oo run ah baa jirta oo sida ay Soomaalidu u tiraado loo arko haddana nas aan loo hayn wax badan oo jira bajeeda galowgan ay leeyihiin waa qumay oo markuu yimaado waa dhacda hadaysan dhicin oo habeenka aan qof xirada laga bixin ama aan xoolaha bala gaarin deema ay dhahaantay nas bay u hayaan oo waxay ku leeyihiin waxaan saan u dhacay waa wax jira oo wax facts ah oo runa oo xaqiiqo ah laakiin de ergeysho ma jirto meel ka soo xiganayaan ma jirto marka maamada caada la gooyo cara la leeyahay ku dhiiran ma taageerin ma anigu laakiin caadadu waa wax jirta oo dhaqanka qayb ka ah oo aqeedada ummadda taabanaysa iyo ummaddu waxay aaminsan tahay hadda Soomaaliya waxa la yiraahdaa xilliga islaamka ka hor waaq iyo waxbay caabudi jireen horta luuqadeeda waaq afkaas ka haya war iyo waaq uma hayo ay waaqlaan ka cidlaan way haabaya yaani waa caada dhaqameedkiiba qayb ka mid ah ma garata marka caada dhaqameedku sida aan ku sheegay waa belief wax qofku aaminsan hada cilmi quraafaad aan ku sheegay cilmi falak aan ku sheegayo xagee laga qoro cilmi falak xaguu ku jira cid qodayma waxay ku leeyahay toddoba yimid roob badaay de ilaahay baa wax sheega qofkana waxay kuma soo dago laakiin waa saynis Soomaalida u gaar ah ay taqaano adduunyada ka luqad kale ay leeyihiin waa laga yaabaa marka caadadu waa sayniska Soomaalida caado waxa aad ku garanaysaa waxa may horta adu waxa tiri ma aaminsani laakiin hadii aan ku dhaho hadda tusaale anigu jifadayda xubin kamid ah hilibka ama neefka ma cunno haddaan cunnana qaabteeda aragnaa marka ma waysan ahayn caado la gooyaa cara maya mid baan ku sheegaya cara alle waxay ka waajibtaa wax nabiga loo waxyooday calayhi salaatu wasalaam oo ummadda lagu amray oo ummadda ay goysay ilaahay jifideeda waxay kuma soo dejin aayaad khaas ah kama soo saareen mana oran reerka hadayna saahaday sameeyaan saana dhacaysa ma garad de malaha waa ciqaab rabbi sidiisa idin daba dhigay waa ciqaab dheerbaaliye wax jirta mid kale jirta oo anigu baan arkay oo wax runa
dadku waxyaalaha caadada kamid ah ama qof ilaahay hiwaayo wax waa isaga siin kara dad hadda waxaad arkaysaa maska ku candhuufaya uu bogsoonaya saa intuu u mariyo wixiiba ilaahay ka dulqaadayo marka hadda qof ilaahay wax waa ku ilhaamaya waa ilhaam shakhsiye qofka wax ilaahay ku ilhaamayo hiba u siiyay bay jirtay ma garad marka madaxa waalid ku ilhaamaya ama hilibka wuxuu rabaa adigu ibaad xusinay wuxuu rabaa rabbi ka dhigay waa ilhaam nafsiyo ilaahay ku ilhaamayay ma aha wax hadii aad sameysaan aad caro ama ciqaab aakhiro aad ka maraysaan saan u malaynayo laakiin sida aan ku sheegay caadooyinka dhan kulli waa facts waa xaqiiqo jira laakiin wixii mar haddaan nas loo hayn magaca waxaan siinanaa khiyaal ama quraafaad baan siinanaa waxa way nas aad uga soo helaysay kitaab maanta fanni kasta rug reeha baladaysi ay cadkaan cunaan waxaasa ku dhacaya فن أي كقرة الصومالية ودنبا فنون الإسلام كمالا كقرة إلهي كل مسلمين والإخوة بير قبائل كوضم الصومالية ودنبا على القبيل ما قرأت مركز في ذا عبد الناصر وبيلك يسوق لي سايب جرت لكن هو حقيقة أشرة وابسينس كالصومالية دام كيربا سادة عادة نظاميات كأما خرافات كأما علم الخيال كمجا عربتيت بقويرة وساينس كالصومالية دون كجدوان دون كالصومالية راجعين إيرادان وروتيشنال ووريجية يعني قرح هذا مرة حاجة يمارسها مرة حاجة يمارسها ده هو ساينس كالرجال بيت كده أنا قمنا لك قصة درسنا مال لكن نقول لا تتيود كنا يلوك تيود كنا وحنا استعمالنا وهو كائنات قارقة